kulan looga hadlayay kaalinta dhalinyarada iyo haweenka ay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha dalka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka socotay ururka haweenka qaranka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka, xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir, wasiiro iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay kulanka. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamed Makraan ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka. marka insha Allah taala annaga waa ku baraarugsanahay madaxweyne wasiir waxaan diyaar u nahay dhalinyarada guud ahaan in barnaamijkan fahansiinta bixinta canshuuraha oo kale doorka ay ka qaadan lahaayeen sida loo garab istaagi lahaa dawladdeena inta inaan ka shaqeyno. waxaan ugu mahadcelinayaa kulankan qiimaha badan ee wasaaradda runtii nagu casuuntay guud ahaan Soomaaliya. waxaan leeyahay waxaan joognaa waqti horumarka la taaban kara la gaaray oo taasna sabab ay u tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladdiisa 4 sano jirto. waxaan aaminsanahay in dhalinyarada number 1 fursadda ugu muhiimsaneed ee heleen inay tahay 4 sano ay hadda joogtay. Gudoomiyaha haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo iyana goobta ka hadashay ayaa ku dheeraatay ka hadalka kaalinta haweenka ay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha dalka. waxaan aaminsanahay in dhiirigelin haweenka lagu sameeyo oo dhaqaalaha loogu talagalay ganacsiga la amaahiyo oo ay maaragtay ku baraarugaan inay haystaan dawlad ka naxaysa barbar taagan oo gol inay carruurtoodu noolaato nolol qalanta. waxaana arrintaas ka sugaynaa dawladdeena sharafta badan miisaaniyadda qaranka Soomaaliyeedna had iyo jeer lagama maaragtay qadariyo horumarinta gabdhaha ama dhaqaalahooda in kor loo qaado. taana waxay u baahan tahay inaad mudane wasiir ku-xigeen agaasimo guud aad ogaataan maadaama idinku aad fadhidaan positionkii gabdhaha Soomaaliyeed lagu matali lahaa. waayo gabdhuhu wasaaradda way ka shaqeeyaan laakiin decision maker kama aha. idinka ayaa go'aanka talada iyo soo bandhigida miisaaniyadda iyo maaragtay sahminta ilaha dhaqaale ee loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka faa'iido idinka ayaa ka mas'uula. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti oo iyana ka hadashay kulanka ayaa ku goobaabisay dhalinyarada Soomaaliyeed in kaalin mug leh ay ka qaataan horumarka dhaqaalaha dalka. hooshena wili way dhiman tahay, wili dalka wuxuu ka soo kabanayaa burburkii inaan noqono dad isku duuban ka shaqeeya horumarka oo wadaan ganacsiga inaad bixisaan canshuurihiisii. wax walba canshuur lagu bixiyana aad ogtihiin meeshuu ku baxayo iyo dawladda la xisaabtami kartiin ee u badan yihiin dhalinyaro doorkiina ayaa la joogaa inaad ka faa'iidaysatiin marka aad horumarka dalka ka shaqeysaan dib u dhiskiisana aad ka shaqeysaan. waad u jeedaan hadda waxbarashadii gobolka Banaadir ayaa la wareegay. marka maxaa naga sugaysaan? waxaa naga sugaysaan in waxbarasho lacag la'aan ah heshaan. haddaysan canshuurta aadan bixinin annaga ma bixin karan waxbarasho lacag la'aan. waxaa ku soo barbaarteen waxbarasho lacag lagu bixinayo. maanta jiilka idinka dambeeyo mustaqbalkooda waxa dhisi kara waa idinka. haddaad qayb ka qaadataan inaad mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed carruurta Soomaaliyeed maanta soo barbaaray dawladnimada indhaha ku soo furto ku soo barbaaray haddaadan idinka aadan u istaagin dhexda aadan u xirinina waxba ma suurtagelayso. wasiir ku-xigeenka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Khalaco ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka hadashay kulanka. gabdhaha aad iyo aad runtii ninkii gabar dhalay ay yaqaan gabar macnaha ay ku fadhido qiimo ay leedahay. dalkan markuu burburay waa la kala yaacay. anigu maba aqoon meelan wax ka bilaabo xataa aqoon kastoo aan leeyahay gabar baa dalkan badbaadisay runtii markaa rabtaan waana mudan tahay in mudnaanteeda la siiyo. waxaan u malaynayaa walaasha Batuulo markii hadlaysay wasiirku buuguu ku booday balantaas waa qaadaynaa anoo wasiirka la jiro insha allahu tacaala waxna waa laga qaban. gabdhuhuna halkaa inay ka wadaan dhiirigelinta xornimadii ayagaa wax ka keenay dalkan markuu burbur ayagaa wax ka dhisay maantana weli ayagaa taagan inaadan ka caajisin. sihayaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa gabagabadii kulanka ka hadlay. marka maalintaad aragto qof mas'uul ah oo 8 xafiiskii jooga ilaa 5 fadhiya waan soconay. maalintaad aragto 10 qof oo Soomaaliyeed oo meel ku ballamay oo 9 ka ballamay saacad inay shiraan 9kii isku yimid hatta 90% ay joogaan waan soconay. ma dhacayso labaan isku imanay
maantoo dhan baad meelaha goobyaali meelaha joogjoogi ood kadeedni markaas hadhow loo haddana shirki u baaqo maxay tahay waxaas ilaahay ku dhaari maxay tahay waxaas maxay tahay ma Soomaaliya saasaan meel ku gaarayna oo dadka adduunka kula tartamayna ya kula tartami karayna marka xanuunadaasaan leenahay xanuun markaa leeyahay dhakhtar baa loo taga waa la first thing waa recognize xanuunku hayo waa xanuun inay tiraahdo way dumada xanuun weligaa tahay ma xanuunayo mar dambe ciyi waa ka bari ay noqoto uma dhakhtar ka tagayso ma waa inaad markiiba tiraahdo alla taas waa xanuunka la iska daweeya dadku waa inay shaqo tagaan waa inay wax qabtaan waa inay wax soo saaraan dabeetana ay kasbadaan mushaarkooda Soomaaliya oo ah dal ka soo kabsanaya muddo sanado burbur ah ayaa dhalinyarada iyo haweenku waxa ay lafdhabar u noqdeen sidii mar kale Soomaaliya ay kaga soo kabsan lahayd burburka dhaqaale ee dalku uu wajahay.